wasiirka wasaaradda ciyaaraha iyo dhalinyarada ee dalkan jamhuuriyadda Soomaaliland oo maanta socdaal ku yimi xarunta gobolka Saaxil ee Berbera ayaa waxa uu booqday garoonka weyn ee magaalada Berbera isagoo ay weheliyaan mas'uuliyiinta gobolka iyo degmada Berbera iyo sidoo kale madaxda wasaaradda ciyaaraha iyo dhalinyarada ee gobolka Saaxil waxaana halkaasi uga warbixiyay garoonka iyo xaaladda uu ku sugnaa sanadadii u dambeeyay isuduwaha wasaaradda ciyaaraha iyo dhalinyarada ee gobolka Saaxil Shaafici Jaamac Aadan iyo sidoo kale xildhibaan Cali Cabdi Dheero oo isaguna kamid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee Berbera roogaasu in muddo ayuu yaalay سنة جابوا يالي لبس سنة بيمكوا يالي ما أنت واحد فرحة دلوقتي إن روجي إن وسيركي ولوصل بقضي كرامكي وشاتك وسيركي نوياي إن هدينا نفس الوقت أيوه كرامكي سيدك دقة ولا قصة وقت كانوا يوصل فوق الله ليجو. أنا لنا هاي صور دو وشدة أو يمي وحوي إن أرن يدرين قبل كصاحل يد اللي يريسو يوم مامل لما أنت نيجي كوهاي لجنة سوية وصارت عيارها ونصور دويرنا ونكا إيجيني ما أنت هدي سي ورخصها قبضي لو بلا بيو كروك لون دقح دقيو روجي لون دقيو وصور دويرنا xogayaha fulinta dawladda hoose ee Berbera Cabdikariim Aadan Siciid iyo sidoo kale gudoomiyaha golaha deegaanka ee Berbera Cabdishakuur Maxamuud Xasan Cidin oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in ay muhiim tahay in si degdeg ah roogii cagaarna loo dhigo garoonka dhexe ee magaalada Berbera waxa uu sheegay gudoomiyaha golaha deegaanka ee Berbera inay qaybtooda ay ka qaadan doonaan dhigista roogaasi wasiirka iyo wasaaradana aad iyo aad baan ugu hambalyeynaa uguna bogaadinaynaa inuu maanta garoonka weyn ee Cabdalla Stadium ee magaalada Berbera aynu roogii dhigayno roogaas runtii in muddo ayna sugayay anaga laftaydu ka maamul ahaan aanu fariimo badan wasaaradda u dirnay maanta haduu wasiirka halkan taagan yahay horumar weyn oo wasaaraddu gaadhay oo aanu ku bogaadinayno weeye maayan Cabdalla Stadium wuxuu xunaa muddo badan wax kale oo ma xunaa wuxuu u baahan yahay inuu la jaan qaado stadiumyada uu dalku leeyahay ee roog kale فرحات وين بيناتها وحنين بدن وقدبة تاجنين ما دامه وزارة دقاتي وسياسة قرن قرار وقدري وميزانية سرور الأنسحية إنه هرونا ما طول لكن ما أنت لهاي إدمي حلا سبحانه وتعالى وسخري إنه وسيركو وما أنت هوشها وفصحه gudoomiyaha gobolka Saaxil injineer Axmed Cusmaan Xasan oo isna halkaasi ka hadlay ayaa soo dhaweeyay tallaabada lagu horumarinayo dhalinyarada iyo ciyaaraha iyo sidoo kale garoonka dhexe ee magaalada Berbera waxaana gudoomiyaha hadaladiisii kamid ahaa runtii waxa farxad noo ayna degdeg noogu soo jawaabtay si degdeg ayna noogu soo jawaabtay oo maanta adigoo soconaya garoonka dhex taagan tahay adigoo diyaar u ah in roogii si degdeg ah loogu dhigo ballanqaadkii aynu dhalinyarta horay u kala qaadanay waa ka wasiirkeeni maanta inoo yimi fariintii markaan gaarsiiyay wasiirka wasaaradda ciyaaraha iyo dhalinyarada ee dalkan jamhuuriyadda Soomaaliland Boos Mire Maxamed oo isna halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in wasaaradahan ay si degdeg ah u bilaabi doonaan dhigista rooga cagaaran garoonka kubadda cagta ee Berbera insha Allah wixii laga bilaabo maanta iyo wixii ka dambeeyo waxaan u dhaqaaqaynaa dhigistiisii berito wasaaradda dhanbaydii imanaysa intii hadhay waxa la keeni doonaa wixii ka dhindhinaa rooga ahayn ee alaabooyinkii kala ahaa haddii la yiraahdo wixii xareer waa in kontraagi loo gudbiyo dhalinyarada reer Berbera waxaan leeyahay haddii maqashan burca la dhigiyo Berbera waa la dhigiyaa isku marubay miisaaniyada wada gale Mukhtaar Cabdiraxmaan Maxamuud telefishinka qaranka Soomaaliland Berbera